duqa magaalada Sheffield ee dalka UK oo Soomaali ah ayaa madaxweynaha Mareykanka ka mamnuucay inuu gudaha u soo galo magaaladaas. Magid ayaa ku dhawaaqay hadalkaasi isagoo ka hadlaya kalfadhigii golaha deegaanka. Arrintaas ayuu taageero ugu muujiyay waddanka Mexico. Ninkan oo ka tirsan xisbiga Green Party ayaa intaasi kadib Twitterka ku soo qoray magaalada weyn ee Sheffield ayaa laga mamnuucay madaxweynaha Mareykanka ee Trump. Duqa magaaladaas oo 28 jir ah ayaa loo doortay bishii May ayaa ilaa hadda qofkii ugu yaraa ama duqii ugu yaraa ee soo maray magaalada Sheffield. Golaha deegaanka ayaa sheegin in Magid uusan lahayn awood wax kaga mamnuuco balse ay tahay soo jeedin iyo talo kadibna ay goluhu uga doodi karaan si dimuqraadiyadda aragtidooda ku aadan shakhsiga waliba tawruur. Magid ayaa soo galay magaalada Sheffield isagoo 5 jir ah. Ali Cabdi Jaamac Qamar telefishinka Badda Cas Hargeysa.